kumuu ahaa ninkii aasaasay shirkadda aynu mar waliba ku mashquulno ee Facebook. Mawduuceena maanta waxaynu ku lafagureynaa Mark Zuckerberg taariikhdiisa oo dhameystiran. Kusoo dhawaada barnaamijka Haldoor. Magacaygu waa Muscab Maxamed, halkanina waa channelka Caamir Yare. ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون دار. Mark Zuckerberg waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 14 May 1984. waa American ganacsadaha tiknoolajiyada iyo sidoo kale deeq bixiye. Zuckerberg wuxuu caan ku ahaa isku keenida iyo hogaaminta Facebook sida gudoomiyaha iyo madaxda fulinta. Waxa kale oo uu la shaqeeyay oo xubin ka yahay guddiga mashruuca horumarinta hawada qoraxda ee Brickhouse Institute. Mark Zuckerberg waxa uu ku dhashay White Plains ee magaalada New York. Zuckerberg waxa uu waxbarashadiisa ku dhigtay jaamacadda Harvard, halkaas oo uu ka bilaabay fikirka Facebook qolkiisa jiifka ah 4 Febraayo 2004 oo ay la wadaageen Idaro Safarin, Andrew MC Collins, Justin Moskovitz iyo Jerry Hayes. markaas ayaa loo bilaabay si loo xusho xarumo kuliyadeed. markii hore ayuu u bilaabay inuu ardayda fasalkiisa la wadaago fikirkan Facebook ay ku soo dhacay, deedna waxa ay noqotay fikir aad u ballaaran. isagu waxa uu ugu talagalay inuu ardaydiisa oo kaliya casharada duruusta ay ku qaataan, deedna waxa ay noqotay fikir ballaaran. waxa uu isku dayay inuu gaarsiiyo caalamka oo idil. degsanaantii ayaa si xawli ah ku balaarisay oo ugu dambeyntii dhaafsiisan kollejyada caalamka oo idil. intii lagu guda jiray hal sano waxaa degsatay in ka badan 1 bilyan oo adeegsadayaal ah. markii uu marayay sanadku 2012, Mark Zuckerberg waxa uu shirkadda ka qaaday mushaar dhan 71.7 bilyan ilaa Oktoobar 24, 2019 oo uu kordhay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo saamiyada Facebook guud ahaan sanadkii 2007 markii uu ahaa 23 jir wuxuu noqday bilyaneerka ugu da'da yar dunida. laga bilaabo sanadku markuu ahaa 2018, Mark Zuckerberg waa qofka kaliya ee ka hooseeya 50 ee liiska 10 qof ee ugu taajirsan Forbes iyo kan kaliya ee ka hooseeya 40 ee liiska 20 bilyan ee ugu sareysa. laga soo bilaabo 2010, majalada Time ayaa ugu magac dartay Zuckerberg mid ka mid ah 100 qof ee ugu taajirsan uguna saameynta badan adduunka oo qayb ka ah abaalmarinta shakhsiga sanadka. bishii December 2016, Mark Zuckerberg waxa uu galay kaalinta 10aad ee Forbes The World, kaasoo ahaa liiska dadka awoodda leh. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa awood leh. Mark Zuckerberg waxa uu bilaabay adeegsiga kombiyuutareedka iyo wax qorista kombiyuutareedka dugsiga dhexe. Mark Zuckerberg aabihiis waxa uu baray barnaamijka Atari Basic Programming 1990, kadibna waxa uu shaqaaleysiiyay soo saaraha kombiyuutarada ee David Newman inuu si gaar ah wax u barayo Zuckerberg. Mark Zuckerberg waxa uu qaatay koorso qalin jabin ah, waxa uuna ka qaatay macadka lagu magacaabo Mercy College oo u dhow gurigiisa, isagoo weli dhigta dugsiga sare. tan iyo markii aabihiis dhakhtarka ilkaha laga maamulay gurigooda, wuxuu dhisay barnaamij software ah oo ugu magac daray Sagnet, kaasoo u ogolaanaya dhammaan kombiyuutarada u dhaxeeya guriga iyo xafiiska. waxaa loo arkaa version heer hoose ah ee loo soo gaabiyo AOL, sida laga soo xigtay qoraaga Jose Antonio Vegas. caruurta qaar ayaa la ciyaaray ciyaaro kombiyuutarka ah. Mark Zuckerberg laftiisu wuxuu xasuustaa maadadan, waxa uuna ahaa shakhsi aad u jecel isticmaalida kombiyuutarka, waana tan u suurtagelisay jaranjartana u taagtay guushiisii uu ka gaaray website-ka caanka ah ee Facebook. halkan ayaynu ku afmeerinaa taariikhdii dheereed ee aanu ka soo bilownay gunta hoose ee Mark Zuckerberg. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala.